gobolka Minnesota waxaa shalayta lagu dhawaaqay natiijada kursi loogu tartamayay golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Kursigaasi uu hore ugu fadhiyay nin Soomaali oo lagu magacaabo Cabdi Warsame. Jamaal Cusman oo kamid ah 7 qof oo Soomaali ah oo kursigan ku tartantay ayaa lagu dhawaaqay in uu isagu doorashada ku guuleystay. Jamaal Cusman ayaa guushiisa kadib dareenkiisa iga warramay. dareenkayga wallahi niyahow aad iyo aad buu wanaagsan yahay, aad baan ugu farxay guusha meeshaan ka gaarnay xaafadahaan. xaafadu way hadashay waxayna dooratay Jamaal Cusman. Jamaal Cusman ayaa u hambaliyay dhammaanba musharaxiintii la tartantay oo sheegay in ay soo bandhigeen olole nadiif ah oo aan bulshada lagu kala dilin, waxaana ugu baaqay in ay la shaqeeyaan. dhalinyaro badan baa jirta laakiin oo Soomaali saa u sheegtay ay ku jiraan. dhalinyarada kulligood niyahow waa meeshaan way soo istaagi karaan, waana u qalmaan. fikrado wanaagsan bay wadeen. haddeertaana waxaan jeclahay kulligood inaan marka hore u mahad celiyo, aan congratulation dhaho. campaign qurux badan ayaan maanta Minneapolis ku qabanay. waxaana jeclahay walaalahay idea fiican bay wateen oo xataa kuwa aan iga fiican way wateen. waxaan jeclahay inay ii yimaadaan, aan isla shaqeyno, xaafadeennana aan u istaagno. doorashada Jamaal Cusman ayaa ku soo beegmaysa xilli dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota qaarkood ay u dhimanayaan dhibaatooyinka maandooriyaasha laga sameeyo kaniiniyada la isku qaso, taasi oo bulshadu u qayla dhaaminayaan wax ka qabashadeeda. maalinta u horeyso xafiiska tago aan ballan waxayga arinta caruurta oo drug ku dhimanayso inuu state-ku siriga Minneapolis ay u istaagto, ay dhahdo arintan crisis walbeeto oo magaalada dhaca waa loo istaagaa. budget baa la geliyaa, lacag baa la geliyaa. anigu 12 city council oo meesha jooga waan la hadlayaa. waxaan ku yiri xaafad waxaan ka imid baan dhahayaa caruurteena ay ku dhimanayso. aniguna halkan waxa la ii soo diray in dhibaatadan wax ka qabano. mas'uul baa ina ka saaran inaan caruurteena badbaadino. waxaana jeclahay waalid walbeeto, ummad walbeeto oo kala jecel caruurteena inay garabkayga soo istaagaan, arrimaha aan soo wado oo caruurteena badbaadiyo ahna ay kala qayb galaan. Jamaal Cusman oo ka hor intii aan la dooran muddo ka soo shaqeynaya arrimaha guriyeynta ee magaalada Minneapolis ayaa waxa uu sheegay inuu u kaba ilan doono sidii degmada 6 lagaga dhisi lahaa guryo jaban oo dadku ay kiradooda iska bixin karaan.